tarbiyada ciyaalka in wax laga barto dadkan ciyaalka waa la garaacaa quraanki buu diiday webta baa laga saaray iskoolkii buu diiday webta baa laga saaray yaani maanta waxa wax laga baaraa oo dabeecadooda laga xayawaanad wax laga ogaado xayawaan baa inta uu nool yahay muddada nool yahay baa la qiyaasay oo la yiraahdo xayawaankaas inta uu nool yahay qofkii bini'aadamka miyuuna xaq u lahayn in la ogaado sidoo u dhaqmaa sidaas loola dhaqmi karayo arrin aad muhiim ah ciyaalka yarka in la yiraahdo cilmiga ku saabsan ciyaalka see loola dhaqmaa see loo tarbiyeeyo aad bay muhiim tahay kutub aad muhiim ah oo Cabdikariim Bakaar doctor la yiraahdo oo Suuri ah uu waxeeyo dadka kuba filan ba ayaga hadii aqriyaan baa jirta waxa kamid kitaabkiisu yiraahdo taasiisu aqliyati tifli yaani qofka ilmaha yarka ah sidee aqligiisa loo dhisaa waa kitaab aad muhiim ah oo 169 page oo aad dadka muhiim waa gaar ahaan dadka waalidka ah waxa kamid ah kitaabka al-qawaa'id al-10 fi tarbiyat al-abna 10 qaacido oo uu doctorku sheegayo carruurta qaabkii loo tarbiyeyn lahaa waa 120 page weeye isaguna waxa kamid ah kitaabka la yiraahdo al-muraahiq yaani qofka muraahiq ee xiniyo gududis bay Soomaalidu taqaana sidee loo dhaqmi karaya dhowr iyo 10 jir ruux markuu gaaro madaxa taagu iskoolkii diido quraankii diido webta baa laga saaray qofkaasi waa marxalo diinta islaamkuna ay ogoshahay weeyo qofka si gaar ah in loola dhaqmo yaridii uu ka gudbaya weynidii uu gudbaya waa marxalo u baahan in lala socdo kitaabkuna waxa weeye aad buu uga hadlayaa sheekhu waa 161 page oo waa kitaab aad muhiim u ah oo kaba hadlaya sidee loo fahmi karaya qofka dhowr iyo 10 jirka gaaray ee Soomaalidu taqaan xiniyo gududis oo yaraantiina ka sii baxaya weynaantiina aan wali gaarin waa kitaab aad isaguna kulli muhiim u ah waxa kale oo kamid ah طفل يقرأ أو كتاب ليلادو يعني المجرى وحقريه يو عيالكي وحكو ديرجلنا سي وحو أقريان سي الله تربينا أو إذا لفت هذا كهالله وحكم إذا كتاب قري مشكلة الأطفال وعيالك يدباتوين كذا يوارد سوء حلنا يا مشكلتها عيالك يوارد سوء حلنا وبقول كنت أنا أفر بيج وأرين آد مهم وأشياء خاص كتبتي سهدي لو تحمه أو الله أخريه أو اللي ترجمه أو الدين تلسوق جارسيه كل واحد بدن بلحلين كريه